إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka quraanka kariimka aan ku soo jirnay cashirkuna maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 67 buu ka bilaaban oo min suurati al-maa'ida ka ahaaday yaa ayuha rasuulu rasuulkanow balligh gaadsii addoommada maa shayga unzila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbika rabbiga xaggiisana lagaaga soo dejiyey wa in lam tafcal haddii aada sidaa yeelin famaa ballagta maada gaarsiinin risaalatahu ilaahay risaaladiisii ma aada dadka gaarsiinin wallaahu ilaahay baa yacsimuka kaa ilaalin min annaasi dadka ilaahay baa kaa ilaalin shartooda iyo fidnadooda ilaahay baa kaa ilaalin in allaha ilaahayna laa yahdii ma hanuunin hayo alqowma qolo ilaahay ma hanuunin hayo qoomka alkaafiriina gaalada ah aayaddu waxay lahayd sababu nuzuul bay lahayd sababu nuzuulka aayadduna wuxuu ahaa nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo jooga leyla oo min alayaali habeenada ka mida isagoo jooga nabigu ayaa wuxuu doonay habeenkaa inuu helo rag waardiyeeya markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa rajulun saalixun yaxrisuna alleyla alla caawa muu jiro nin wanaagsan oo na waardiyeeya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan wuxuu u soo diray saxaabigii lagu magacaabi jiray sacad iyo xudayfa ayuu ilaahay u soo diray iyagoon is ogeyn buu mid walba qalbigiisa ilaahay wuxuu ku tuuray nabiga inuu caawa waardiyeeyo mid walba intuu qalabkiisii soo qaatay ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid isagoo raba inuu waardiyeeyo ilaahay baa marka aayaddan soo dejiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi nabi muxamedow dadka waxa lagugu soo dejiyey oo waxyi a gaadhsii dadka addoommada gaadhsii sida haddii aada yeelinna risaaladii ilaahay maada gudanin ilaahay baana ku ilaalin oo dadka kaa ilaalin adiga mas-uuliyadda ku saaran iyo xilka ku saarani waa inaad risaalada gudbisid wey ama adiga amnigaaga
iyo adiga ilaalintaada ilaahay baa ku ilaalin. ayaddu markay soo degtay nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam insarifuu ayuha الnaas faqad casamani اllah wuuna wuhi calayhi الsalaatu wasalaam dadow kala taga nin walbow gurigaagii iska aad buu nabigu yidhi ilaahay baa i ilaalin haye. alla marka wuxuu yihi nabi muxamedow xagga ilaalinta iyo amnigaaga ilaahay wuxuu yidhi anaa ku ilaalin. cadow iyo wax adiga shar kula soo aadaya anaa kaa ilaalin, laakiin adigu risaalada dadka gaadhsii, risaaladuna sida ay tahay u gudo. welidaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waxyaabo yar yarahoo dakhar iyo waxyaabo yaryar oo loo geysta mooyaane ee cadowgu si walba intay isugu dayeen nabiga inay dhibaato u geystaan way u geysan kari waayeen. ilaahay baa ilaalinaya subxaanaه wa tacaala. yaa ayuha rasuulu rasuulkanow balliq gaadhsii maa shayga unzila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey gaadhsii addoommada ilaahay min rabbika rabbigaaga xaggiisana ka gaadhsii. wain lam tafcal haddaada sidaa yeelin oo arrintaa aada samaynin famaa ballaqta maada gaadhsiinin risaalatahu ilaahay risaaladiisii ma aada gudbinin. wallaahu ilaahay baa yacsimuka ku ilaalin oo min annaasi dadka xaggoodana kaa ilaalin. ilaahay baa dadka kaa ilaalin, ilaahay baa kaa badbaadin. in allaha ilaahay laa yahdii ma hanuunin hayo alqowma qolo qoomka alkaafiriina gaalada ah ilaahay ma hanuunin hayo. qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow yaa ahlalkitaabi kitaabka kuwa ehelka u ahow yahuud iyo nasaaraay lastum maydaan ku sugnaanin calaa shay-in shay diin ah oo xaq ah maydaan ku sugnaanin xataa tuqiimu tawraata ilaa tawraad aad ka oogtaan walinjiilana aad ka oogtaan wamaana aad ka oogtaan unsila la soo dejiyey ilaykum idinka la idiin soo dejiyey min rabbikum rabbigiin xaggiisana la idinka soo dejiyey oo ah kitaabka qur-aanka. walayaziidanna wala wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaziidanna wuu ziyaadin oo wuu ziyaadin kahiiran in badan kahiirkaasoo minhum xaggooda ka ahaaday maa shayga unsila ilayka nebi muxamedow adiga lagugu soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisana lagaaga soo dejiyey duqyaanan qooq iyo kibir iyo isla weynan buu u ziyaadin iyo wa kufran gaalnimo. ee falaa ta'sa ha tiiraanyoonin cala alqowmi qoom dushooda ha u tiiraanyoonin qoomka alkaafiriina gaalada ah. ayadda qudhigeedu sababu nuzuul bay lahay. sababu nuzuulku wuxuu ahaa ayaddu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam jamaaco yahuudda ka mid ah ayuu nabigu dacwada u bandhigay. markaasaa waxay yidhaahdeen waxaan haysanaa oo annaka gacmahanaga ku sugan towraad baan haysanaa, xaq baan ku sugannahay, hanuun baan ku sugannahay, towraad baan haysanaa, kuna rumayn mayno kumana raacaynay ku yidhahdeen nabiga ku yidhahdeen calayhi الsalaatu wasalaam. waxa annaku gacmahanaga hadda ku sugan oo towraada ayaan haysanhaynaa bay yidhaahdeen. xaq iyo hanuun baanan ku sugannahay, adiga ku rumayn mayno mana ku raacayna yidhaahdeen. ilaahay baa wuxuu soo dejiyey waxaad dhahdaa nebi muxamedow ahlu kitaabkiiow lastum calaa shay waxba kuma sugnidin wax diin ah oo xaq ah oo hadda aad ku sii sugnaan haysaan ma jirto haddaad rumayn weydaan nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam. ilaahay baa dhaartay oo ilaahay baa wuxuu leeyahay qur-aanka nebi muxamedow lagugu soo dejiyey in badan oo iyaga ka mid ah, in badan oo yahuudda ka mid a wuxuu u ziyaadinhayaa uun duqyaan iyo kufrin buu u ziyaadinhayaa. maxaa yeelay qur-aanka markay arkaan oo waxyigandegii ay arkaan way xanaaqi, way cadhoonhayaan, aflagaaday samaynhayaan, nabigay aflagaadaynhayaan, waxyigandegii bay aflagaadaynhayaan,
dhibaato gaalnimo iyo qooq unbay sii ziyaasanayaan. allah marka wuxuu leeyahay nabi maxamedow kuwan gaalada ah rumayn la-aantan iyo xumaantan ay ku sugan yihiin waxba tiiraanyo yeena kugu reebin. ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa addoommada oo dhan inay ilaahay rumeeyaan subxaanahu wa tacaala oo ilaahay ay ka cabsadaan gaalnimadani inay yaraato ayuu nabi maxamed jeclaa calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baa marka wuxuu leeyahay ha tiiraanyoonin oo ha walwalin oo ha u tiiraanyoonin kuwan gaalada ah rumayn la-aanta ay xaqa rumayn la-yihiin ha u tiiraanyoonin. qul waxaad dhahdaa nabi maxamedow yaa ahlalkitaabi kitaabka kuwa ehelka u ahow lastum kumaydaan sugnaanin calaa shayin shay xaq ah xataa tuqiimu towraadda ilaa towraad aad ka oogtaan walinjiilana aad ka oogtaan wamaana aad ka oogtaan unzila la soo dejiyey ilaykum idinka la idinku soo dejiyey min rabbikumna la idinkaga soo dejiyey oo kitaabkan qur-aanka ah. walayaziidanna wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaziidanna wuu ziyaadin oo wuu ziyaadin kahiiran in badan kahiirkaasoo minhum xaggooda ka ahaaday maa shayga unzila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey min rabbikana lagaaga soo dejiyey duqyaanan xadgudub iyo qooq iyo wa kufran gaalnimo unbuu u ziyaadin. falaa ta'sa ha tiiraanyoonin nebi muxamedow cala alqowmi qowm dushooda ha u tiiraanyoonin qoomka alkaafiriina gaalada ah. ina aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudiyoobay iyo wasaabi'uuna kuwa saabi'iinta ah ee dayaxa iyo xidigaha caabuda iyo wanasaara kuwa nasaarada ah man qofka aamana rumeeya billaahi ilaahay walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamo rumeeya oo wa camila camal fala camalan camalkaasoo saalixan wanaagsan falaa khawfun wax cabsi ah calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum iyaguna ma ayna ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyoon ma ayna ahaanin. ilaahay baa wuxuu leeyahay addoommada ilaahay oo dhan isu keen kuwan mu'miniinta ee nebi muxamed iyo ilaahay iyo xaqa rumeeyey ka bilow kuwa yahuudda ah kuwa saabi'iinta la yidhaahdo. saabi'iintu waxaa weeye waa kuwa xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa iyo kuwa caabuda ayaa saabi'iin la yidhahdaa, kuwa caabuda. iyo nasaarada kulli isu wada geeye qofkii ilaahay rumeeya maalinka qiyaamo rumeeya camal wanaagsan sameeya qofkaa unbaa xaq ku taagan wax cabsi ana dushiisa ma ahaan hayso mana walwalayo oo ma tiiraanhayo weligii cabsan mahayo oo min cadaabi dunya min cadaabi yowmi alqiyaama dheh kama cabsanayo. aniga qofkaas ilaahay rumeeyey ee maalinka qiyaamo rumeeyey ee camalka wanaagsan sameeyey ama markiisii hore yahuudi ha ahaado ama saabi ha ahaado ama nasaara ha ahaadee qofku hadduu ilaahay rumeeyo maalinka qiyaamana rumeeyo camal wanaagsanna uu sameeyo cadaabka maalinka qiyaamo horta ka cabsan mahayo mana tiiraanyoon hayo oo waxyaabaha ladaadka adduunyada ah ee ka tegayna uma yacniga ma artay tiiraanyoon hayo uma tiiraanyoon hayo. qofkaasi wuxuu noqon hayaa qof aakharadiisa iyo adduunyadiisuba ay degan yihiin buu noqon hayaa qofkaas. ina aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudiyoobay iyo wasaabi'uuna kuwa saabi'iinta ah ee qoraxda iyo xidigaha caabudi iyo wanasaara kuwa nasaarada ah ee le nabi ciise ayaanu aaminsannahay man qofka aamana rumeeya billaahi ilaahay rumeeya iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamo oo wa camila camal fala camalan camalkaasoo saalixan wanaagsan falaa khawfun cabsi calayhim dushooda ma ahaanin oo maalinka qiyaamo cadaabka ilaahay
kama cabsan hayaan walaa hum iyaguna ma ayna ahaanin yaxzanuuna kuwa tiraanyooda oo waxyaabaha adduunyada ladaadkeeda ah ee ka tegayna uma tiraanyoon hayaan laqad akhadnaa waxaan qaadnay miithaaqa banii israa'iila reer banuu israa'iil ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey baan qaadnay wa arsalnaa waxaan u dirnay ilayhim iyaga rusulan baan u dirnay kullamaa mar walba oo jaa'a uu soo gaadho hum iyaga rasuulun rasuul bimaana uu ula yimaaduu la soo gaadho laa tahwaa anfusuhum nafafyaalkoodu ayna rabin oo ayna jeclayn fariiqan koox ambiyada ilaahay ka mida kadabuu way beeniyeen wa fariiqan kooxna yaqtuluuna way leynhayaan ilaahay wuxuu leeyahay waxaan reer banuu israa'iil baan ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey ayaan qaadnay oo muxuu ahaa ballankaas ilaahay wuxuu kula ballamay kitaabkii lagu magacaabi jiray towraad inay ku dhaqmaan ballankaasuu ilaahay ka qaaday towraad inay ku dhaqmaan oo towraad waxa ay u sheegi ay raacaan yuu ilaahay ballan kaga qaaday towraadna waxay caddayn haysaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisa ayay caddayn nabiga aakhiru zamaan ilaahay uu diri doono sifada uu leeyahay towraad bay ku taallaa sifadiina nebi moxamed baa iska leh calayhi salaatu wasalaam idan ballantii way ka baxeen nebi moxamed markay beeniyeen oo nebi moxamed ay raaci waayeen ballantii ilaahay uu ka qaaday yahuud uu ka qaaday oo ahayd inay towraad ku dhaqmaan oy raacaan way ka leexdeen ilaahay marka wuxuu leeyahay mar walba oo rasuul uu u yimaado wax naftoodu ayna rabinna uu ula yimaado qayb ka mida ambiyada way beeninayaan oo wayba beeniyeenba qayb ka midana wayba laayeen ambiyay laayeen nebi zakariye iyo nabi yaxye iyo dhegtay dhiigga u dareen iyaga in badanna way beeniyeen idan dhaqankooduba waxaa weeye hadduuba nabigu ula yimaado wax iyagu ayna rabin ama way beenin hayaan ama way dilayaan oo wayba sii xadgudbayaan ilaa nabiga la beeniyey iyo nabi la dilay midkee dhib badan nabi la dilay baa dhib badan mar hadda u fiirso laqad akhadnaa waxaan qaadnay miithaaqa banii israa'iila nabi yacquub awlaadiisa ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey baan qaadnay wa arsalnaa waxaan u dirnay ilayhim iyaga rusulan rusul baan u dirnay kullamaa jaa'ahum mar walba oo uu ula yimaado rasuulun rasuul bimaa shay uu ula yimaado laa tahwaa ayna doonaynin anfusuhum nafafyaalkoodu ayna doonaynin fariiqan qayb ambiyada ka mida kadabuu way beeniyeen wa fariiqan qaybna yaqtuluuna way leynhayaan waxasibuu waxay u maleeyeen allaa takuuna inayna ahaan haynin fitnatun fidno iyo ciqaab ilaahay inuusan ahaan haynin bay u maleeyeen facamuu way indhabeeleen wasammuu wayna dhagabeeleen uma taaba allaahu ilaahay baa ka towba aqbalay calayhim dushooda uma camuu haddana way indhabeeleen wasammuu wayna dhagabeeleen kaiirun in badan ayaa dhagabeelay oo indhabeelay kaiirkaas oo minhu yaga xaggooda ka ahaaday wallaahu ilaahayna basiirun mid u arag badan weeye bimaa sheega yacmaluuna ay camal falayaan marka ay ambiyada qaybna beenin hayaan qaybna ay layn hayaan waxay u maleeyeen wax fidno ah oo arrintaa ka dambayn inayna jirin laakiin fidno ayaa ka dambaysay ilaahay baa ciqaabay kuwa daanyeeruu ilaahay ka dhigay kuwana doofaaruba ilahay ka dhigay subxaana wa tacaala laakiin iyagu markay dhibaatadaa geysan hayaan waxay moodayaan wax fidno ah iyo wax ciqaab ilaahay ah iyo wax imtixaan ah oo arrintaa ka dambayn inuusan jirin saasay malayn hayaan ilaahay baa wuxuu leeyahay way indhabeeleen oo xaqii bay ka indhabeeleen way dhegabeeleen oo xaqii inay maqlaan bay ka dhegabeeleen inay xaqii maqlaan ayay ka dhegabeeleen
ilaahay baana haddana ka tooba aqbalay iyagoo sidaa yeelay ayuu ilaahay ka tooba aqbalay meeqa ilaahay ka tooba aqbalay intay dhibaato sameeyeen oo la halaagay baa haddana la soo nooleeyey ilaahay markaasuu haddana ka tooba aqbalay barada u fiirso iyagoo intii la halaagay oo la soo nooleeyey laga toobad aqbalay yee haddana dhibkii dib ugu laabteen mar kale barada u fiirso dad waxay ahaayeen dhib badan bay ahaayeen alla wuxuu leeyahay waxasibuu waxay u maleeyeen yahuudi allaa takuuna inayna ahaan haynin fitnatun wax fidna ihi oo imtixaan iyo ciqaab rabbaaniya inuusan ahaan haynin bay maleeyeen facamuu can ilxaqi xaqii bay ka indhabeeleen wasammuu can ilxaqi xaqii bay ka dhegabeeleen uma taaba allaahu ilaahay baa ka tooba aqbalay calayhim dushooda uma camuu haddana way indhabeeleen oo xaqii bay ka indhabeeleen wasammuu wayna ka dhegabeeleen xaqii kaiirun in badan baa ka indhabeelay oo ka dhegabeelay kaiirunta waa bedelo waxaad ka bedelaysaa uma camuu faacilka ayaad ka bedeli kaiirunta min jihati naxwa kaiirun in badan baa indhabeelay oo dhegabeelay oo xaqii ka indhabeelay oo ka dhegabeelay kaiirkaasoo minhu yaga xaggooda ka ahaaday wallaahu ilaahayna basiirun wuu u arag badan yahay bimaa sheega yacmaluuna ay samayn hayaan laqad kafara waxaa gaaloobay aladiina kuwa qaaluu yidhi in allaha ilaahay huwa alle almasiixu masiix wey masiixii ibnu maryama wiilkeeda ahaa wa qaala almasiixu masiixna wuxuu yidhi yaa banii israa'iila reer banuu israa'iilow ucbudu llaaha ilaahay caabuda rabbii aniga rabbigay caabuda wa rabbakum idinka rabbigiin caabuda innahu sha'niye man yushrik billaah ilaahay qofkii u shariig yeela faqad xarama allaahu ilaahay wuxuu ka xarimay calayhi dushiisa aljanna jannadu ilaahay ka xarimay wa ma'waahu minankiisuna annaaru naarta weeyaan wamaa lilaalimiina aalimiintana uma ahaanin min ansaari wax u gargaaraya uma ahaanin dabadda u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay waxaa gaaloobay kuwa yahuudda ah ee yidhi kuwa dhe nasaarada ah kuwa nasaarada ah ee yidhi masiix baa ilaah ah qaybay noqdeen yahuuddu qaar saasay aamineen kuwa lagu magacaabo yacquubiya oo yahuudda qayb ka mida ah yahuudiyana dhihin cafwan nasaarada qayb ka mida ah yacquubiya la yidhaahdaa yacquubiyadaasa waxay yidhaahdeen masiix waaba ilaah meel kaleba ilaah u raadinin masiix baa ilaah yidhaahdeen maxaa yeelay waxbuu nooleeyaa waxbuu caafiyaa waxyaabaha noocaasana ilaah baa iskale yidhaahdeen wax dhintay in la soo nooleeyo ilaahay unbaa iska leh wax xanuunsan oo jiran xanuunka in laga qaado cudurka laga qaado ilaahay unbaa iskale yidhaahdeen marka waaba ilaah bay yidhahdeen way gaaloobeen kuwaas waa yacquubiya masiixna isagaa wuxuu yidhi reer banuu israa'iilow ilaahay caabuda ilaahay caabuda allaha oo aniga rabbigaya idinkana rabbigiina caabuda qofkii ilaahay u shariig yeela janna waa ka xaaraan buu yidhi nabi ciise hooygiisuna waa naar saasuu yidhi nabi ciise calayhi salaam isagoo hooyadii dhabteeda fadhiya oo markaa uun dhashay markay yidhaahdeen maryamo xaggeed ka keentay waxay tidhi isaga la hadla hadalkii markii laysku celceliyey muxuu nabi ciise sheekada ka bilaabay innii cabdullah ciise kama santaagin waynu soo marray soo maahay an yakuuna cabdan lilaah nabi ciise isagaa le war ilaahay caabuda ilaaha aniga ilaaha ii ah idinkana ilaaha idiin ah caabuda isagaa lehe ilaahnimadan xaggay uga daba wadaan soo dulmi maah laqad kafara waxaa gaaloobay aladiina kuwa qaaluu yidhi in allaha alle huwa alle almasiixu masiix wey masiixii ibnu maryama inankeeda ahaa wa qaala almasiixu masiixna wuxuu yidhi yaa banii israa'iila reer banuu israa'iilow
اعبدوا الله إلهي عابدا ربي أنيق ربك عابدا وربكم إذنك ربك عابدا إنه شأني من يشرك قفكي أشريك يلا بالله الله قفكي أشريك يلا فقد حرم الله وحوك حرمي عليه دشيس الجنة جنة إلهي كحرمي ومأواه من كيسنا النار نارتويان وما للظالمين ظالمين تنا وما أهانين من أنصار وحو قرقاري وما أهانين لقد كفر ويقالوا بين الذين كوا قالوا يري إن الله ألا ثالث ثلاثة سدح مسدح يوي وما من إله ألا حق له عابدنا مجرو إلا إله موي وإله سو واحد كريس وإن لم ينتهوا هدي أين كهر عما يقولون وحا أيكو قوليان هدي أين كهر ليمسن وحا تابا أو تابا الذين كوا كفروا قالوا بي ومنهم يجا حقوا ذكاء هذي عذاب تابا عذاب كاسو أليم أي مؤلم وحنوجيا وقال كلا نصارى ذا وحيليهن سد إله باجرا إله كون كإسكاله عيسى يسوون إله كلا مريم يدون إله كلا قالوا فيرس عقل واحد دور لما هرين أنري ما حشون هايو وحبك حشون ما هايو سد ذا إله باجري لهذين نبي عيسى وإله بإليهن مريم بنت عمران وإله بإليهن إيا إله كون كإسكاله سد ذا إله باجري إليهن إلهي وحيري كوا سدا أهد لي ويقالوا بين كون كان إله واحد باك جري بس الله حق لو عابد أن الله هين كون كما سمنو إلهينا ليه سبحانه وتعالى إلهي وحيري waxa ay ku qawlayaan oo hadal xumada ah haday ka hadi waayaan cadaab mu'lima ayaa taabadon ilaahay subhanahu wa ta'ala aniga qofka sida u hadlay ee ilaahay wax garab galiyay cadaab oo aad u xanuujiya ayaa taaban bu ilaahay Allah inaga badbaadiye barada u fiirso laqad kafara way gaalobeen alladina kuwa qaaluu yiri إن الله ألا ثالث ثلاثة سدح متك سدح يوي وما من إله ألا حق له عابدنا مجرو إلا إله ألا مويانا الله سو واحد كنيسة وقال لما قال أيقنا فكر كاقاتي أو كمدا نصارى كمدا وقال الله إذا هذا نسطورية يقول الله إذا هذا ملكانية لما نقول فكر كاسقاتين أو أيقنا وحيلين كون كم سدح إله باك جرا كوا كلا يقول جرا أو يقول سدح إله شيء لكن دين كلا أو شيء أو لكون كسدح إله باك جرا أو مدينة وامدك وحبورة مدينة وحوي حاجة علمك إياه وحيا معص أيو مسؤول كيا هاي منا كونكم مسؤول كيا وحاس أردن وفكر دمي وعقل دمي وعدد إلهي وبادية وي برد أو فيرس الله وحيري وإن لم ينتهوا هدينا كهرين عما يقولون وحا أيكو قوليان هدينا كهرين لا يمسن وحا تابا أو تابا الذين كوا كفروا قالوا بي ومنهم يجا حقوا ذكا هذي عذاب تابا عذاب كاسو أليم أي مؤلم وحنوجيا أفلا يتوبون محي أقولنا قوايين إلى الله إلهي محي أقولنا قوايين ويستغفرونه إلهي محيدا بداف وقدل بوايين والله إلهينا غفور وألدا بداف بضان رحيم أوربا حريص بضان إياه أو سيدا أو هاللي أو وحا كو هاللي أو وحا سميي هدنا إلهي هدي توبة كالطلبان وإلهي أولامتان إلهي وكتوبة أقبل يا سبحانه وتعالى الإسلام يجب ما قبله قفكو سكستو وقال نما وقو تلحتغو si kasta oo gaalnimo uu ugu fogaado hadduu gaalnimadii iska taago oo kelimatu tawxiid uu ku dhawaaqo oo xaqa uu raaco qofka ilaahay waa ka tooba aqbalaya subhanahu wa ta'ala waliba wax alla wixii gaalnimo uu ku soo sameeyay looma qabsanayo tawxiidka markuu ku dhawaaqay oo islaamka uu galay wixii macaasi ah ee ka dhacda ilaahay inuu u qabsado hadduu rabo wuu u qabsan hadduu rabana wuuba iska cafin laakiin qofku gaalnimadii wuxuu ku soo sameeyay mar hadduu islaamka galo
إلهي وما قبصنا سبحانه وتعالى. الإسلام يجب ما قبله كأنما وحنا شيء وكلام نقول وحي هرور لن إلهي وقاتل تريا سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله إلهي محي أقول توبت كيني واين وإلهي ما يقول توبت كينان ويستغفرونه إلهي الدم بداف محي أقول بواين والله إلهي غفور ومد بداف بدن رحيم أول من حريص بدنه. ما المسيح مسيح ما أوناها المسيح ابن مريم مريم ويل كذا إلا رسول مويه وحكر ما أوناها قد خلت ويتكتي من قبله سجهرتيس الرسل ويتكتي وأمه هو يدينا صديقة وامد رمبضا وهذا الكأي شيء كل شيء بدن كان وحي هذين نبي عيسى هو يديس يأكلان كوعني الطعام راشيك كوعني بهذين إلهي إن إله النقدان إسكداية راشيك أي عنيان وبشر كانوا كمدا انظر فيري كيف سيدا نبين أن أقوع الدين هينو لهم إيجا الآيات آيات كسيدا أن أقوع الدين هينو فيري ثم انظر فيري أن سيدا يؤفكون اللي حين يوحق اللي حين يوجانا رد فيرس إلهي وحولي هاي مسيح أي مريم رشوى رسول أكرم مسيح ابن مريم وأن رسول إلهي وصادري رسولنا ويكه الرئيسي وليبا رسول نمضى إساقوا أقومه الرئينين الرسول باكه الرئيسي قد خلد من قبله الرسل محيط هاي رسالة إيا الرسول نمضى رسول باكه الرئيس إساقا هو يدين وصديقة مريم بنت عمران وصديقة محل قوضا قول كذا وامد كل شيء جد بدن قول كذا وامد كل شيء جد بدن نبي ما أين أهين سيدا ابن حزم قوة ابن حزم بقى وحوق قبع إنا يهيد نبي مريم بنت عمران وحولي هاي قف آن نبي أهين إلهي وحيودو إيادنا إلهي بقى الله هضلي وحيودي لكن هو مسألة إمامك قال يعني ما أرتي ما هو فكر كيسوي كوقاسي هاي برادة أوفيرس راشين كينا عنان مسيح ابن مريم إيه يدي مريم راشين كي عنان معناها سمحوية وإله كوالي أيو إلهي يقول فوق سبحانه وتعالى وبشر أو كمذا أون بشر كان راشين كعنا سيدا بشر كانوا راشين كعنا بيجون راشين كعنا مركب وإله ميل إسكندقة مريم إله ميل إسكندقة عيسى إله ميل إسكندقة ونوع معنا ما المسيح ما ونعهانين مسيح ابن مريم إن كذا إلا رسول مويه وحكى لما ونعهانين قد خلد ويتكتي من قبله سجهرتيس الرسل وأمه إسجه يدينا صديقة وامد رمبضا وهذا الكذا كرمبضا كان وحي هذين مسيحي مريم يأكلان طعام راشنك كوعنا انظر فيري كيف سيدا أن نبين وقعدين هين اللهم إياك الآيات نبي محمد وبالفيري سيدا أن آياتك وقعدين هين له انظر فيري نبي محمد كيف سيدا نبين أن وقعدين هين اللهم إياك الآيات كانوا وقعدين هين له ثم انظر هدنا فيري أن سيدا يؤفكون الله إيلي أي حق الله إيلي iyadoo sida aayaadka loogu cadeyn hayo ayay hadana xaqii ka leexsan yihiin oo baadil iyo wax aan jirin bay daba socdaan qul waxaad ahdaa nabi maxamedow atacbuduuna macaabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa maa shay laa yamliku aan hanan haynin lakum idinka daran wax dhiba walaa nafcan wax nafci aanaana idin hanan haynin miyaad caabudaysaan والله إلهي هو الله السميع ومد مقلد بدن أقواش أدوم ديسا العليم أوليبا كل علم بدن أفعاش أدوم ديسا إلهي بوحولي هاي ضر إيا النعفي وحن كو قبان كلمات عابودي
إلهي أنبو ضرك حقي سكي مادا نعفقنا إلهي أنبو حقي سكي مادا إلهي بهدار النافعنا هدار لقح عابدو ما دي بكو كيني كرا ما ديف بكو كيني كرا نيف لو هدار عابدو ما دي بكو كيني كرا ما ديف بكو كيني كرا نبي عيسى هدار عابدو ما دي بكو كيني كرا ما ديف بكو كيني كرا لا والله إلهي أنبا نعفي إيا ضر إيا نعفي با إلهي حقي سبكي مادا سبحانه وتعالى لكن هدو مانكو رمو وإلهي أمانك قلوعيو وحبضا أمانك توصني أوليا بيو أيو إساقو قادنا يا أو أكو رقم يا قل وحاد هذا النبي محمد أتعبدون معابد إيسان من دون الله إلهي سكذي سميال عابد إيسان ما شيء لا يملك لكم أن إذين هنان هينين ضرا وحدي بعده ما شيء لا يملك لكم إذين كأن إذين هنان هينين أو أن إذين كسمين كرين ضرا وحدي ولا نفعا أن إذين كسمين كرين والله الله هو الله السميع الله مقلد بدن ويان العليم أو ولي علم بدن قل وحدث النبي محمد يا أهل الكتاب كتابك كو أهلك أوهو لا تغلوها كحد قد بنا في دينكم دينتينها كحد قد بنا غلوا حد قذب كاسو غير الحق حقير كيسا ولا تتبعوها الراعنا أهواء قوم قلها وذوذها الراعنا قوم كاسو قد ضلوا رمي من قبل هري رمي وهو أضلوا رمي كثيرا إنبضا وهو ضلوا كرمي عن سواء السبيل جدكي السحظة هاي توصنانا كرمي الله وحليه وحاد هذا النبي محمد وأهل كتاب كيو أهل كتاب كيو دينتنا هكو حد قد بنا محايا ليهودنا حد قد بي سميسي وهو حيد هذين عزير ابن الله بيد هذين نصارنا حد قد بي سميسي ومحيد هذين مسيح ابن الله بيد هذين وثالث ثلاثة بيد هذين والله بيد هذين إلهي بأمريكا وحولي هاي والدينتنا هكو حد قد بنا هانا الراعينا الدد الرومي مسكع ضوضها الراعينا هوذوضها الراعينا وحي ربانها الراعينا ضد يقوى هوري الرومي وأمد بدن الروميها الراعينا ضد جد كيف عنا كالله حذي الراعين قال الله سبحانه وتعالى قل وحاد هذا النبي محمد يا أهل الكتاب كتابك كو أهلك أوهو لا تغلوا هكو حد قد بنا في دينكم دينتنا هكو حد قد بنا غلوا حد قذب كاسو غير الحق حق الكيساء حينو هذا كسفين غير ذا وحينو كسفين غلوا أين سو قدرني إعراب كراك وقبنا من جهة النحو وهو حانده كرنا قل وحد هذا النبي محمد يا أهل الكتاب كتابك كو أهلك أوهو لا تغلوا هكو حد قد بنا في دينكم دين كينا هكو حد قد بنا حال كونه غلو قاسنا غير الحق حق كيسو يحي وعراب كريسان كوكو بنان ولا تتبعوا هراعنا أهواء قوم قلها وذو هراعنا قوم كاسو قد ضلوا رمي من قبل هري رمي وهو أضلوا رميي كثيرا ضد بذن رميي وهو ضلوا إيقنا كرمي عن سواء السبيل وضدي تصنيت كرمي لعنا وحال اللعنة ذي الذين كوا كفروا قالوا بي ولا اللعنة ذي ومن بني إسرائيل ريب بنو إسرائيل حقوا ذكاء هذي على لسان داوود نبي داوود لسان كيسا لقول اللعنة ذي وعيسى نبي عيسى اللسان كيسا لقول اللعنة ذي عيسى ابن مريم والكيدها ذلك كاغا واللعنة دي هنا كائن وو هذي بما بسبب ما شيء سبب كيس بوكو هذي عصوا إلهي كو عاسيين وكانوا وحينا هذين يعتدونك وحد قد بي وحد تلابي بين نقدين كانوا وحين نقدين لا يتناهون كو ان اسكريب عن منكر كاسو فعلوه اي سميين لبئس وحا باس لهذي ما شيء باس لهذي كانوا أي هذا يفعلون كوا سمية رد أفيرس
إلهي با وحولي هاي وحي لعنة ذي كل عضي ريب بنو إسرائيل بي لعنة ذي كل عضي وإلهي با لعنة ذي على لسان داود كل لعنة ذي محايا النبي داود لكن كودي مركو الله يابيبو حباري أو لعنة ذي عيسى بن مريم لسان كيسنا إلهي وكل لعنة ذي لعنة داسنا وحا أصابها عاسن مضوض إيه حد قذب كوضا أصابها قف كستا ابن آدم وطريقة صحدة أكل إحدى حد قذب سمايا معاسد إلهي أبريرا لعنة داسي دوشي ساياها نيسا أردو فيرس ألا وحولي هاي وحا حن أو أي سمايان مين إسكريبي جرين كوضا علماء دعا كوضا عامدا حمانتا أي سمايان هيان مين كريبينين نبي عليه الصلاة والسلام وحو النور شيغي والنبي يقول عليه الصلاة والسلام nimankii oo haa reer banu Israa'iil dhaqankoodu wuxuu ahaa xumaan markay sameeyaan culimadoodu xumaanta marka hore way ka reebi jireen war xumaantan iska daayay dhihi jireen marka dambe xumaanta markay ku laabtaan culimadu shibay ka dhihi jirtay caada ayuu wixii noqonayaa culimada qudhigeeda wixii marka dambe iskaga dhaqmays dhaqan kasta oo ummadihii hore ay ku dhaqmayeen markaas u yar fiiriso إنك نوالي إنك هليا محايا وحان أركي جرني بلشو مسلمين ويلاليهم ميل دقن وعاملوذو يددك عن علمي غنهايني وحكستو إلهي اللي قفوا عن أي سمين هيان دلكي بي سمين هيان دعي بي سمين هيان تاريكو صلاة نمدي بي سمين هيان كوي علماء لأهانا ويسكدح جوغان شبه كيهين بل وحان لغايا وامد كان عالم كأه إيه فقيها إننا ناكتيسو تكن هينين جبديسو تكن هينين ويلكيسو تكن هينين بلغا يالا يساقون هو عالم وحي ريبا نسا يسمين سوما ووحي إياه أي سمايانون وحو البا نبينا عليه الصلاة والسلام وحوجي لحدي وحكستو أي ضدكي هورا سمايان وسمايان هيسان وحوجي النبي عليه الصلاة والسلام ما سلوا لي قد كذا هدي أي جلان إذا كنا واد جلس أبونا عليه الصلاة والسلام شبرا بشبر بدود بجلس أنون روفيرس الرماء آياتكو عنيجي ما كان لها اللي معيان إنك إن لها الليان قفك مسلم كأ وحال ربا مسؤولية دمرك ورا نفتي سينو قبل لعبه نفتي سيوكو حجسين هيا إهل كيسو كحجسين إهل كيس وعينو إصلاحيو بالله عليكم ninka laga yaabo salaada inuu safka hore fadhiyo oo gurigiisana wax diin la yiraahdo ayna ka muuqanin haweenkiisa iyo wiilashiisu wax walbo ilaahay uuna raali ka ahayn ay sameyn hayaan iyagoo intay jeegada xiirteen gaaladii waaweyna isu ekaysiyo inta kaliya ay timi kaga yaalaan gacmaha kuula ku wada xidhay sidii naga marka intay guriga u fadhiyaan ay canjeerada cunayaan qofka salaada uu tukan maxay tahay salaada uu tukanayay waa salaad dhalanteeda weeyaan guryaheena aynu islaaxino awlaada aynu dhalay iyo haweenka aynu qabnana islaaxa aynu ka bilowno iyaga aynu ka bilowno anuga aad dhashay markuu qaan gaadho wanaaga markuu aad u sheegto haduu qaadan waayo qool intaad ku garaacdo guriga orod kaga saar ka eri guriga waxaad dhahdaa caasinimada meel kale la tagdhe aniga la fogow igala fogowde laakiin markaad canugaagiyo caasi ah canjeerada markaad siin eed feedaha u buuxin adiguna aad salaad tukanaysid salaadaadu qiimo male nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i walmunkar salaadaadu waa inay xumaanta kaa reebto alada u fiirso jamiil lucina waxaa la lacnaday aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka ahaaday calaa lisaani daawuuda lagu lacnaday wa calaa lisaani ciise bni maryama lagu lacnaday daalika kaagaasina kaa'inun wuxuu ku ahaaday bimaa kii sababkiis caasow ay ilaahay ku caasiyeen wa kaanuu waxay ahaadeen yactaduuna kuwa xadgudba kaanuu waxay ahaadeen laa yatanaahawna kuwa ood iska reebin can munkarin munkarkaasoo facaluhu ay sameeyeen labi'sa waxaa baas lahaaday maa shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa sameeya
ترى وحاد أرك النبي محمد كثيرا إن بدن كثير كاسو منهم إيجا حقو ذكاء هذي يتولون إني كجع لجان هيان الذين كوا كفروا قالوا بي لبئس وحاب باص لهذي ما باص لهذي قدمت أي أهر مريان لهم إيجا أنفسهم نففيا الكوضة أهر مريان أن سخط الله إلهي إنه أعرضي باص لهاتي عليهم إيجا دوشوضا وفي العذاب عذاب كدحدي سنهم إيجو خالدون ويكواريان نعوذ بالله إلهي با وحليهي نبي محمد وحاد أرك إن بدن أو يهود كمده وحي كولي ديغان هيان مشركين تعربيت بكولي ديغان ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا راسي ومشركين تهدى إلا وين صامرني قول يهود كمده انت مكة تغين إنا يلهدين وحرمنا إنا إنو إسكاشنو oo ninka lagu magacaabo Muhammad ee fidnada wada aynu isu kaashano mushrikiintii carbeed maxay ku yiraahdeen isku mabda ma nihiin horta isku mabda noqon yiraahdeen ummad kala mabda ah intay midowdo meel wax kala wada qaban karaan aynu isku mabda noqono oo isku mabda waxaynu ku noqonaynaa annaku geedahan iyo dhagaxyaan kanaan caabudnaa asnaamtanaan caabudnaa ee horta u sujuuday yiraahdeen markaasay sujuud qac ka siiyeen markay u sujuudeen يا هدنا وحيد هذين أهل الكتاب شيئا جرتين إيه أو واحد هيدين كتاب بان هيسنايه بل هرت واحد عد يساني كان واحد وياهي إنه ياهي النبي جي للسوق يا إن كان بهرتك العدي هذين مركز هذه النبي نماه في طنب وضع سو ما عرفت لبادي وغش شرط بالنيد أي كل عين وينصامرنا آياته كهذي وإلهي كهذي سبحانه وتعالى إلهي بملك وحليهي waxaad arkaysaa nabi maxamed oo in badan oo yahuuda kamidii mushrikiinta carbeed inay ka wari dhigan hayaan waxa baas lahaaday waxa naftoodu ay hormarisay oo ay shaqaysanayaan waxa baas lahaaday ilaahay inuu cadhooday subhanahu wa ta'ala ada ilaahay qof ay ku dhacday ma baas baa u dhiman baas uma dhinna ilaahay wuxuu yiri naartana way ku waarayaan tara waxaad arkay nabi maxamed oo kathiran in badan kathir kaas oo minhum yahuuda xaqooda ka ahaaday يتولون إني كولي ديغان هيان الذين كوا كفروا قالوا بي لبئس وحا باس لهذي ما شيبا باس لهذي قدمت أي أهر مريان لهم إياغا أنفسهم نففيا الكوض كبدل أن سخط الله ألا إنو أعرضي باس لهاتي عليهم إياغا دوشوضا وهم إياغنا خالدون وحي كواريان في العذاب عذاب كدحديث كواريان وهم إياغنا خالدون وحي كواريان في العذاب عذاب كدحديث كواريان ولو كانوا هدي أي أهان لهايين يؤمنون كورمين بالله إلهي يو النبي النبي يو ما شيء أنزل لغو سودجي إليه النبي ما اتخذوهم مشركين تعربيد مين كيشين أولياء جعل إيه المين كيشين ولكن كثيرا انبضا كثير كاسو منهم يهود حقو ذكاهي فاسقون كوا فاسقين أو ضاعد إلهي كبحيوي الله وحولي هاي هدي أهان لهايين هدي أهان لهايين يهود هدي أهان لهايين كوا رمين إلهي إيا النبي محمد إيا كتابك إلهي والنبي محمد كسو دجيي كوا رمين هدي أهان لهايين مشركين تعربيد جعل إيه المينا كدكتين جعل إيه المينا كدكتين إلهي با وحو يري إن بدن أو يهودا كمدا وحاوية واكوا فاسقين أو كداعدي إلهي كبحي أو مالحن كسعود ويان ولو كانوا هدي أهان لهايين يهودي يؤمنون كورمين بالله إلهي يو النبي النبي يو ما شيء أنزل لغو سودجي إليه النبي ما اتخذوهم جعل عربيد ما أين كدكتين أولياء جعل ما أين كدكتين ونين جيد يقري عابديا جعل ما أين كدكتين ولكن كثيرا انبضا كثير كاسو منهم يهود حقو ذكاء هذي فاسقون كوضع عد إلهي كبحيوي والله أعلم.